شغالة بعد قرنك وشوفوا فلافيين ماريوه هوري وهذه أتوقع السلام ماريو كوركيه كي كدومية قولك odayaal kale iyo kuriyaga dowladda guud madaxda kale iyo waayarka kale meesha fadhiya waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa farxad u ah maanta inaanu joogno xafladan lagu wareegayo maareeyaha madbacadda qaranka hore iyo maareeyaha dambe ee madaxweynuhu soo magacaabay labada ninba waa laba reer sanaaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha waxaan weeyaan xilka qaranka iska waajibe intuu meerta yahay waa laba ninoo isku magaalo ah oo isku gobol ah aad iyo aad baa sida la isku ag fadhiyaan iyo sida isku soo dhaweynayaan baan ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan wixii nin walba meel buu wax soo gaarsiiyey ninka kalena halkuu buu ka sii qaadayaa siciid waa laga warbixiyey waxaan aad iyo aad u sheegayaa in siciidda wanaaggiisii laga sheegay maareeyaha kale soo socdana maxamuud huraage uu yahay ninkaa wada garanaysaan oo halgamaaga oo intaasoo shaqada soo qabtay oo isaguna aqoon-yahanka markaa kollay meesha horumar mooyaane inaanay siciid tabayn waa wanaag tahay isna waxaanu filaynaa in sidan iyo si ka wanaagsan siciid looga warbixiyo maalinta isna qori isku dhiibku ka dhammaanayo haddii alla idhaahdo siciidna waxaan leeyahay ilaahay dee awal ka wanaagsan waddankaagu baad u soo shaqaysay marka walaa jazaaun cala alwaajib waxa kaloo aan doonayana halka ka hadlo badi waxaad moodaa dhallinyaradeennu inay facebookan iyo xagga ku baraarugsan tahay oo weliba lagaga horeeyo dhallinyarooyinka kale waxaad kaloo moodaa in shaqa la-aantii ay nagu kaliftay in qof waliba uu profession yar barto oo professionka aad ku shaqa tagtid ee aad ku soo baxdid waagi hore dunida waxaa jiri jira wax laydoo jar iskuullada general knowledge-ku dhallinyarada maskaxdooda wuu furi jiray wuxuu tusi jiray waxyaabo badan oo ay soo mareen wadamada kale for example inanka imika halkan ka hadlaya esimada guudaha ee productionka wuxuu yidhi xamar waxaa la geliyey 18 milyan baa la gelinayaa halkan haddii 20 la geliyo waa dhab madbacadda markaynu samaysanay ilaa maanta 7 sannadood ahaa itaalkeedu meel walba ha ahaado laakiin xamar madbacad may lahayn 18 milyan ay iminka gelinayaana waa 18 ay soo bariyeen oo waddan kale ka soo tuugsadeen innagu waxaan nahay waddan go-aan qaatay gobolnimadiisii la soo noqday isku tashaday waxaynu haysanno baynu wax ku qabsanayna prioritigana meelaha waa kula taliyaa way tahay madbacad laakiin Rome was not built in a day maanta iyo beritoona 20 heli mayse anigu wasaaradda ciyaaraha waxaan doonayaa intaan joogo in garoomo dida la wada sameeyo laakiin imkaaniyaadkeenu sidaa maaha waxaa innaga loo baahan yahay dhalinyaro ahaan inaynu jiinis wada xidhanno inaynu waddankeena u shaqayno inaynu wada koorya baynu xidhanna inaynu nabadgelyadeenna iyo midnimadeenna iyo iskuduubnideenna ka shaqayno si aynu taargetkaa u gaadhina waxaa loo baahan yahay isbeddelka dhallinyaradaa sameeya inaynu ka qayb galno sidaynu u soo ururin lahay dakhliyaadkeena iyo cashuuraheena iyo maxdanaheena oo u soo bixi lahay innagoo ay inoo qoran yihiin programkaas oo dhan markaasaynu gaadhaynaa laakiin xoogga wax gaadhsiinaya waa dhallinyarada waxaan kaloo halkan ka odhanayaa kelmad saaxiibka heelo oo yidhi raggii xusbiga u soo algabay hadduu bilaabo maxamuud raaga u horreeyey waxaan filayaa ragga meesha joogoo dhan raggii soo algabay bay ahaayeen
ragga fadhiyana waa garanaysaan dee waa wasiirka arrimaha gudaha iyo kaafaadhi jaam dhiwan uu soo qabtay xusbiga waa loo soo halgamay rag badan oo soo halgamayna hore u joogeen kuwa dambena way soo socdaan sabir way u baahan tahay inaynu isa sugno marlabaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa labada maareeye ee xilkana kala wareegaya ee labadoodaba aynu garanayno aqoontooda ilaahay waxaan leeyahay maareeyaha cusub guul ha gaarsiiyo insha allah ilaa inaan ku garab galo waan idinku dheereeya hadalkii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu